بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بهذا قحرن channelka Mimrqan channel waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada xisaabta ee fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imanayo MK channel soo gudbiyo waa Mimrqan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinay gambarek like commentiguna waa inoo muhiim mahadsanid waxaan ku guda jirnay qaybihii xisaab falka ama operationska ee complex numberka isku dariska ayaan soo qaadanay kala jarista sidoo kale waan soo qaadanay isku dhufashadana qayb kamid ah ayaan soo qaadanay maanta waxaan qaadanaynaa isku qaybinta division of two complex number in la isku qaybiya laba complex number waxaan dhahnaa complex numberka sida caadiga formkiisa waxaan dhahnaa waa a plus bi waxaan u qaybin doonaa a minus bi ama a plus bi ayaan u qaybin doonaa ama a plus bi ayaan u qaybin doonaa markii aan sida sameynayno qaybintu waxaan sameyn doonaa si aan hooseeyahan qaybahan complex numberka ahi ayaa waxaan ugu dhufan doonaa hooseeyahaasi ayaan waxaan ku dhufan doonaa labada dhinacba conjugatekiisa hore waxaan usoo barnay conjugateka maxragooda a plus bi conjugate waxaan dhahnaa waxaan target ka dhigan doonaa qaybta imaginary party-ga numberka oo imaginary party-ga calaamada ay wadato ayaan bedeli doonaa oo conjugatekiisa wuxuu noqonaa dhahnay a minus bi ayuu noqonayaa meel waliba ama kor iyo hoos ayaa waxaad ku dhufanaysaa conjugateka qaybta hoose ayaa conjugate ku dhufanaysaa okay markaa ku dhufad kadibna si guud ahaan waxay ku soo baxa markaasi adiga markaa target kugu noqonaya oo waxay noqonaysaa markaa qaybihii isku qaybinta ay raadinaysay waxaan dhahnay isku qaybin markaa aragto qaybta hoose conjugatekiisa kor iyo hoos ku dhufanaysaa marka qaar waxa laga yaabaa qaybta kore conjugatekiisa in lagu dhufto so qaybta hoose conjugatekiisa kor iyo hoos ku dhufanaysaa kadibna isku qaybinta iyo ku dhufashadii hore u soo baratay ay ku noqon doontaa insha Allah balan isla fiirino tusaalahaan oo isku qaybinta ahi waxaan la siiyay complex number oo dhan 3 plus 2i iyo mid dhan 5 plus 3i waxaad ku qaybinaysaa marka complexka koowaad oo loo qaybiyay complexka labaad taa la mid ah marka haddii set 1 oo loo qaybiyay set 2 oo la mid ah set 1 waxaan haysanaa 3 plus 2i ayaan haysanaa oo loo qaybiyay z2 waxaan haysanaa 5 plus 3i ayaan haysanaa markay intaa marayso waxaan dhahnay qaybtan ayaad oo hooseeyaha ah ayaa conjugatekiisa marka hore kan aan conjugatekiisa ogaano kan conjugatekiisa muxuu noqonaa marka wuxuu noqon doonaa 5 negative 3i ayuu noqonayaa qaybta imaginary party-ga ayaan target ka dhiganay so marka waxaan sameyn doonaa marka kor iyo hoos waxaan ku dhufan doonaa 5 plus 3i ayaan kor iyo hoos ku dhufan doonaa 5 minus 3i maadaama conjugatekiisa uu yahay 5 plus minus 3i ayaan meel walba ku dhufan doonaa hadda qaybihii hore qaybaha kore iyo qaybaha hooseeyahaba waxay inoo noqdeen ku dhushadii ahaa ee aan soo baranay oo qaab noocan u taalay 3 plus 2i waxaa haddana ku dhufsan 5 minus 3i qaybta hoose sidoo kale waxaa noo yaal 5 plus 3i oo lagu dhuftay 5 minus 3i isku dhufashadaan sameyna marka isku dhufashadii hore usoo baratay qaybtaas hadda iska qalis xitaa qaybta kore waa tusaalooyinka hore usoo marnay maxaa sameynay marka hore 3 ayaan halkan ku dhufan jirnay haddana 2i ayaan qaybta isku dhufan jirnay sidaasaan sameyn doonaa haddana okay waxaan sameyn doonaa marka 3 markii 5 lagu dhufto waa 15 3 markii lagu dhufto minus 3 waa minus 9i qaybta imo marka 2i markii oo plus wadata 5 markii lagu dhufto waa plus 10i 2 markii lagu dhufto minus 3i na waxay mid noqonaysaa marka minus 6i square hadda processkan maadaama hadda koow ay tahay si toos ah u mari doonaa laakiin qaybaha kale ee qaybinta ahi waxaan sameyn doonaa si toos ah ugu dhufanayna ilaan i square minus 1 noo imaanaysan waa ognahay waan kusii dhufan doonaa si toos ah u gali doonaa insha Allah laakiin qaybta hadda processkan sidaan loo marayo horna u soo barateen oo ku dhufashadii ahaa okay qaybtan marka qaybtan maadaama qaybta hooseeyaha ah yeesan hadhow yeesan ka dheeraan waxaa sameyn kartaa qaybta hooseeyaha waxay ku noqotay qaybtii ahaa a plus bi oo lagu dhuftay a minus bi maxay la mid noqonaysaa marka a square minus bi square ayay noqonaysaa marka a square minus bi square si la mid ah maxay noqonaysaa marka a da waxa u taagan 5
square garee waa 25 b-dan waxaa taagan 3i square garee marka 9i square. hadda targetka waxaa ka dhigataa i square si toos ah rabaa inaad ugu bedeshto. okay 15 i square waxay u dhigantaa -1 ayay u dhigantaa. -1 markii lagu dhufto 6 na waxay noqonaysaa +6 ayay noqonaysaa. qaybtaani way kala jarmayaan maadaama ay kala calaamad yihiin. waxay noqonaysaa oo kaliya plus i ayay noqonaysaa oo 9 iyo 10 markii la kala jaro waa 1 i oo plus ah maadaama 10 ay wadato plus oo midda weyn ah oo loo qeybiyey 25 i square waxay la mid tahay -1 ayay la mid tahay. -1 markii 9 oo minus wadato lagu dhuftana waxay noqonaysaa marka plus 9 ayay la mid noqonaysaa marka. labada qayb waa isku darsan doonaa oo 15 markii lagu daro 6 waxay noqonaysaa 21 plus i ayaa sareeyaha kasoo baxay oo loo qeybiyey hooseyahana waxaa kasoo baxaya 30 iyo markii la isku daro marka 25 iyo 9 markii la isku daro maxay noqonaysaa marka waa 34. waa 34 ayay noqonaysaa. way 34 markay noqoto kadib hadda waxa qaabkan ugu tagi karnaa laakiin waxaan qori doonaa formka ah a plus bi mid walba goona u siin 34 31 way qaybsan tahay i way qaybsan tahay. waxay la mid tahay marka 31 loo qeybiyey 34 plus 1 over 34 i si kale ma ahan. hadda tan i oo loo qeybiyey 34 laba baa dhigi kartaa leana hadda 1 horgalaha u ah sida aweed hadii sareeyaha lagu soo dhufto xitaa waana 1 i ku dhufo i le noqonaysaa oo i loos dhiyay 34 iyo 1 over 34 i waa isku wada mid. okay qaabkaas u shaqeynaysaa marka maxaa sameynaa marka process noocee marnay waxaan ana qabto qaabkan hadoo u sameysmo oo qaybin la ii diro qaybta hoose conjugate-kiisa kor iyo hoos ku dhufan doonaa. okay qaybta ku dhashada ah kulli centiviga si toos ah u mari kartaa oo hadda isku qaybisa jawaabta soo ku soo bixaysa. laakiin hadii gacan maris aad ku sameynayso oo inaad fahansan tahay rabto inaad hooyso marka hore waa inaad maskax ahaan u shaqeysaa kadib centiviga la aad hadaarto. laakiin maskax ahaan marka ku shaqeynayso marka boosasyada aad marayso qaybahan ayaa kamid ah. so ku dhasho marka sameyno oo qaybta kor iyo hoos aan ku dhufano conjugate-ka qaybta hoose markaan qaybaha sareeyaha aan isku dhufano oo inta inoo soo baxdo oo 21 plus i boosaska soo marnay oo ah boosasyadii ku dhashada ah ee hore aan usoo baranay. kadibna qaybintana qaybta hoosena waxaan ugu faa'iideysanaynaa maadaama calaamadaha bas ay ku kala duwan yihiin special case-kaas ayaan ugu faa'iideysan doonaa oo qaybta hore square garee laga jaray qaybta dambe square garee. qaybta hore oo ah 5 oo 25 noo noqonayso qaybta dambena 9 oo minus ah oo i square ka minus 1 markay imaadana minus 9 kaas ka dhigaysa positive 9 isku darkooda kadib 34 ina siisay 21 markii lagu daro i oo loo qeybiyey 34 formkii ayaan u qori doonaa 34 mid walba ayaan u qaybin doonaa si aan u qorno formka ahaa x plus yi ama si kale aan u dhahno a plus bi. waxaan u gudbi doonaa tusaalaha xiga. tusaalaha xiga wuxuu leeyahay waxaan sameyn doonaa ama raadin doonaa real numberka ama real partiga imaginary partiga complex numberka z oo lagu daray 1 over z oo ah complexka hadaan raadin doono oo lagu daray cagsigiisa waliba complexkaas oo rogan. complexka marka aan raadin doono waa z oo waxay la mid tahay marka 2 plus i oo loo qeybiyey 1 minus i. 1 minus i ugu horeyn horta z hadii aan helno kadibna rogitaankeeda ayaan hadana raadin doonaa. okay anagoo waliba formkii a plus b aan u qori doono insha Allah. kadibna waxaan ka raadin doonaa real partiga iyo imaginary partiga. waxaan marka hore haysanaa z waxaan haysanaa 2 plus i oo loo qeybiyey 1 minus i. waxaan rabnaa marka qaybta hoose conjugate-kiisa inaan marka hore kor iyo hoos aan ku dhufano. waxaan rabnaa marka conjugate-ka masalan tusaale ahaan conjugate-ka hadii lacala inay ka qaldamayso oo aan ku wareerto kee la bedelaa calaamadee waa ku wareerto ha wareerin TV-gaaga soo qaado marka hore waxaa geysataa complexka oo mood markaa taawato lambar 2 kasii taawo complex ayuu ku yahay. waxaad taaban doontaa shift lambar 2 ayaad kasii dooran doontaa. waxaa kusoo baxaya archiga conjugate-ka angle-ka iyo archiga iyo waliba
formka marka a plus b i qaybta laba ka dooran doontaa wuxuu kuu diri doonaa inaad form meeshaas aad ku buuxin doonto formkan wax kale maahan qaybtan hoose ayaad gelin doontaa si aad ogaato conjugatekiisa waxaa leedahay one negative i ida waxaa laga dooranayaa open bracket qaybtiisa bidix ayaa laga dooran doonaa i kadib close bracket dheh equal aad leedahay marka waxayna soo baxday one plus i taa oo micnaheedu taa marka one plus i ayuu conjugatekiisu yahay aan fiirina marka qaybta kore waxaan ku dhufan doonaa one plus i ayaan ku dhufan doonaa qaybta hoosena sidoo kale one plus i ayaan ku dhufan doonaa haddana waxaadna scientific rabnaa inaan isticmaalno waxaan samayn doonaa marka qoys qaybta kore ayaan isku dhufan doonaa anigoona shaqooyin kale aan galin maadaama shaqooyinka hore aan usoo baranay oo barsisada qaabka loo marayo hore aan usoo baranay so waxaan leenahay two plus i markaan qoyska xidhno haddana open bracket ah one plus i si toosa waxay ii siinaysaa oo iisoo baxay marka one plus three i borsiskaas dheer markaan maro oo ah qaybtan markii qaybta aan ku dhufto haddana qaybtan markii qaybta aan ku dhufto haddana qaybta imaginary ah qaybtaas aan ku wada dhufto wixii i square na minus one aan u bedeshto si guud ahaan waxaa iga soo baxday one plus three i okay qaybtan marka waxaan ugu faa'iidaysanaa dhahnay special caseki ahaa qaybta hore square-na one noo soo baxaysa qaybta dambana i square waaye i square-na minus one waa minus one-na one ayaa minus one-na minus ayaa ku dhacayso plus one ay noqonaysa isku darkoodana waxay noo keenaysaa labo balance la tijaabino okay qaybta one minus i ayaa waxaan ku dhufan haddana one plus i guud ahaan waxay noo soo baxday two ayaa inoo soo baxday waayahay twoda qaybtaas waxaan qori doonaa qaab ah formkii oo complex numberka ah one over two plus three over two i three over two i formka qaabkaas ayuu qoran yahay qaybtee waa z le waa aniga waxaan la diray qaybta marka u qoratid kadib wixii kuu soo baxa real partiga iyo imaginary partiga ayaad ka raadin doontaa hadda kanaa helnay zkaas ayaan helnay rogitaankeeda marka rogitaankeeda intan waan ka qaadan karnaa intan waan ka qaadan karnaa kana nooga haboon marka kan inaan qaadana qaybta inaan qaadana nooga haboon okay z rogitaankeeda waxay la mid noqonaysaa labo oo loo qeybiyey one plus three i kana rogi doonaa wixii aan soo helnay kadib labadooda isku darsan doonaa wixii noo soo baxa kadib real number ama real party iyo imaginary party aan ka sheegi doonaa real party imaginary party tusaalihii ugu horeeyay ayay kamid ahaayeen kuwaan kusoo qadan okay kan conjugatekiisa haddana ogaan doonaa aniga oo hadda yani oo qayb imaginary baranay ama la bedeli doono laakiin waxaa laga yaabaa hadhow inaa yani markaasi wax iskaga qaldamaan sida awgeed si automatically ah waxaa taabanaysaa shift number laba ay kasii dooranaysaa one plus three i close bracket waxay noo soo baxday one minus three i kor iyo hoos waxaan ku dhufan doonaa one minus three i ayaan ku dhufan doonaa qaybta hoosena one minus three i ayaan ku dhufan doonaa taa oo lamid ah marka two gudaha qaybtan dhan ay ku dhacaysaa oo markay one ku dhacdo waa two minus three i marka ku dhacdo waa minus six i oo loo qeybiyay qaybtan waxay ugu faa'iidaysanayaan special case oo ahaa qaybta hore isku weergaray waa one oo laga jaray qaybta dambana isku weergaray waa negative three oo square marka three i square waxay noqonaysaa marka sagaal i square minus one ay la mid tahay minus one na one kaas ayay kusoo dhacaysaa oo minus kaas ay kusoo dhacaysaa positive ah taa la mid ah marka labo plus six labo minus six i oo loo qeybiyey pluska meeshaan ka keeno waa fahmi kartaan i square-na halkaan ahayd i square-na waa horaan kasii bedelay oo minus one ay la mid tahay minus one markii minus sagaal lagu dhuftana waa plus sagaal isku darkoodana waxayna siinaysaa toban ayayna siinaysaa balaan kala siino two over ten minus six i oo loo qeybiyey ten aan sii jibino qaybtan waxayna soo bixi karta marka one over five oo kori hoos waxaan u qeybinay two minus kori hoosna haddana laba u qeybay kor waxaa noo soo baxaysa three hoosna waxay soo baxaysa marka five i hadda waxaan haysanaa z rogitaankeeda ama cagsigeeda oo one over five laga jaray three over five i z-ka kalena waa haysanaa complexka caadiga ah pureka ahna one over two
plus 3 over 2i. hadda waxaan raadin doonaa z plus 1 over z. taa oo la mid ah marka z-kan waxaan haysanaa 1 over 2 plus 3 over 2i oo lagu daray 1 over 5 plus minus 3 over 5i. qeybahana operationska kuwa ugu horeeya ayaan kusoo baranay oo isku daristooda ahaa. haddaad scientific si toos u gelin kartaa, laakiin gacanaan ku samayn doonaa. okay, waxaan isku dari doonaa real number iyo real number, imaginary number iyo imaginary number. okay, real numberska yaa ah marka waa 1 over 2 oo qeybtan real numberka ah oo lagu daray 1 over 5 plus imaginary numberka waxaa ka ah marka 3 over 2i plus qeybta kalena maadaama minus wadato minus 3 over 5i ayay noqonaysaa marka. kaa oo lamid ah marka qeybtan isku darno marka waxaan leenahay jajabkiisa hoos dhiga ah 1 over 2 oo lagu daray jajabkiisa hoos dhigaan sameynay 1 over 5 durba waxaa inoo soo baxay marka 7 oo loo qeybiyey 10. waaya qeybtan dambe asigan sidoo kale waxaa leenahay 3 over 2 oo laga jaray 3 over 5 asigan waxaa inoo soo baxday positive 9 loo qeybiyey 10i ayaa inoo soo baxday. kadib qeybtaas markay inoo qoran tahay waxaan sheegi doonaa marka real partiga iyo imaginary partiga. waaya real partiga aan ku hormarno. real partiga ee complexka z plus 1 over z waxay la mid noqonaysaa yaa real partiga ah waa qeybtan imaginaryga ama I aan wadin oo ah 7 over 10. waayahay imaginary partiga ee complexka z plus 1 over z wuxuu la mid yahay marka qeybtee marka waa 9 oo loo qeybiyey 10 ayuu la mid yahay marka. waxaan soo sameynay fiiri z ayaan raadinay qeybtan ayaan soo helnay, rogitaankeeda ama cagsigeeda ayaan raadinay qeybtaas ayaan soo helnay, isku darkooda wadadan dhammaan maxaan maraynaa ileen qeybtaani ayaa real numberka iyo imaginary numberka ka rabnaa. si qeybtani real number aan u helno waa inaan qeybtan soo helnaa qeybtana soo helnaa. kadib markaan soo helna labadooda waa inaan isku darsanaa, wixii inoo soo baxa waa inaan ka sheegnaa marka real part iyo imaginary part waa inaan ka sheegnaa. borsiska noocaas oo kale ayaa loo marayaa marka. tusaalaha xiga ayaan u gudbi doonaa. tusaalaha 2.11 wuxuuna leeyahay complex numberka ee isku qaybintaani ayaan qori doonaa insha Allah daalidmo maan ka shaqeyn doonaa. waa borsisadii hore aan soo marnay oo kale waxay kaga duwan tahay malaha. waxaan haysanaa 2 plus 3i oo loo qeybiyey 4 minus 2i. kaa la mid ah marka conjugate-ka qeybta hoose ayaan kori hoos ku dhufan doonaa. conjugate-kiisa muxuu noqon marka 4 plus 2i. 2 plus 3i waxaan ku dhufan doonaa conjugate-kiisa 4 negative ama positive 2i oo loo qeybiyey 4 minus 2i asigan sidoo kale lagu dhiftay 4 plus 2i. borsadiisa aan u marno. 2 markii lagu dhifto 4 waa 80. 2 markii lagu dhifto 2i na waa 4i oo 2 waan ka dhamaanay. 3 da imaw 3i markii lagu dhifto 4 waa 12i. 3i markii lagu dhifto 2i ilaan i-da waa isku weergareysmaysaa 2dana waxay noqonaysaa marka 3 markii lagu dhifto 6i squared oo loo qeybiyey oo u qeybsan. qaybtan waxaan ugu faa'iideysanaynaa qaybta hore isku weergareyn doonaa 4 ah 4 ay noo tahay b na 2i ay noo tahay 4 isku weergaree waa 16 oo laga jaray b na isku weergaree waa 4i squared 4i squared. hadda i-da square-ka aan target ka dhigano qaybta dhexna kala jaris ama isku daris wixii kala jarmaya ama wixii isku darsamaya 8 labadaan isku darisa ka dhaxaysa maadaama isku calaamad yihiin waxay noo noqonaysaa marka 16i plus 6i square waxaan bedelinaa dhahanay -1 oo loo qeybiyey qaybtan 16 laga jaray 4
I square waxaan bedelinaa dhahne minus 1 ayaan ku bedelinaa dhahne waxay la mid tahay marka waayahay minus 1 markii lagu dhufto 6 waa minus 6 8 oo laga jaray minus 6 oo lagu daray 16 I oo u qaysa marka 16 minus 1 markii 4 lagu dhuftana waxay noqonaysaa positive 4 ayay noqonaysaa waayahay qaybtaani waa kala jarmayaan maadaama real parties leeyihiin like terms yihiin kala jar marka waa 2 plus 16 I ayaa sareeyaha noogu soo baxay qaybta hoosa noo dhiman isku darkooda waxayna siinaysaa 20 ayayna siinaysaa waayahay formkii a plus bi ayaan u qori doonaa oo 20 ka laba dhinac baa u qaybin doonaa labo oo loo qaybiyay 20 oo lagu daray 16 oo loo qaybiyay 20 I aan si jibino qaybtan waxay noo soo bixayso kor iyo hoos markaan laba u qaybino 1/10 ayaa inoo soo baxayso qaybta kalena meel walba haddii aan laba u qaybinna ama afar u qaybo yani maadaama oo highest common factor-kooda uu yahay 4 sareeyaha haddii afar u qaybiyo waa 4 u qaybsan sareeyaha hooseeya haddii afar u qaybino waa 5 I ayay noqonaysaa marka 1/10 plus 4/5 I aada u mahadsantihiin dhegeysigeena wacan iyo daawashadiina qaaliga ah fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinaya gambaleelka like commentigana waa inoo muhiim mahadsanid